kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada muuqaalkeenna waxaanu halkan idinkugu soo gudbin doonaa haddii eebbe uu raalli ka noqdo xuquuqda haweenka iyo islaamka waxaanu ku lafaguri doonaa inta muuqaalkeenna uu socdo dabcan xuquuqda haweenka islaamka annagoo ka fiilinayno qodobyo dhowr ah iyo su-aalaha faafay ee mowduucan ku saabsan marka hore xuquuqda haweenka adduunka waxay soo martay marxalado kala duwan waxaanu taariikhda ku arki karnaa sida xun ee ilbaxnimooyinkii adduunka ay haweenka kula dhaqmayeen ilaa ay imaatay diinta islaamka marka hore ilbaxnimooyinka ugu caansan waxaa ka mid ah ilbaxnimadii baabiloon waxyaabaha aadka u liita ee ilbaxnimadan waxay ahayd in hadduu ninka qof dilo ay isaga bedelkiisa xaaskiisa la dilayo ilbaxnimadii griiga marka la fiiriyo siday haweenka ula dhaqmi jireen waxay aaminsanaayeen haweeney la yidhaahdo bandura taasoo ay u haysteen inay tahay qofta balada bulshada u horseeda waxa kaliya ay dumarka u haysteen raaxo oo kaliya ilbaxnimadii roomaanka marka la fiiriyo ilbaxnimadan waxaad arki waqtigii ay ugu hormarsneed inay ogolaadeen in ninka garaaco xaaskiisa ilbaxnimadii masaaridii hore marka iyagana la eego xuquuqda dumarka waxay ka aaminsanaayeen inay tahay calaamad shaydaan ilbaxnimadii carabta dumarka waxay ka aaminsanaayeen wax aan nolosha xaq u lahayn wayna dili jireen caruurta yaryar ee hablaha waxyaabaha aan ilbaxnimooyinkan la sheego inay yihiin kuwa ugu waaweyn aan usoo qaadanay waxaad ku arki doontaan qaybta dambe ee muuqaalkeenna haddaba iyadoo dunida xaaladaas ku sugan tahay ayuu islaamka yimaaday haddaba maxay tahay xuquuqda uu haweeneyda siiyey islaamka waxa aynu ka eegi karnaa dhowr qodob hadduu alla idmo xuquuqda ruuxeed ee haweeneyda islaamka siiyey beenaha bulshada reer galbeedka dhexdooda ku faaftay ama ay haweenka islaamka ka sheegaan waxaa ka mid ah inay yidhaahdaan islaamka waxa uu qabaa in ninka keliya uu jannada galayo bal muxuu islaamka ka yidhi marka hore aayado badan oo qur-aanka baa si cad u sheegaya in alle hortiisa ay addoommadiisa u siman yihiin waxa keliya ee dadka kala duwayana uu yahay camalka ay sameeyeen aayadahaasina waxaa ka mid ah aayadda qofkii camal wanaagsan sameeya ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ee mu'min noqda kuwaasi waxay galayaan jannada camalkoodiina waxba lagama nusqaaminayo sidoo kale suuratul ahsaab aayadda 35 waxa uu alle ku yiri ragga muslimiinta iyo dumarka muslimaadka ah ragga iyo dumarka muuminiinta ah ragga iyo dumarka alle adeeca ragga iyo dumarka runta sheega ragga iyo dumarka samra ragga iyo dumarka alle u qashuuca ragga iyo dumarka wax sadaqaysta ragga iyo dumarka sooma ragga iyo dumarka xumaanta ka dhowrsama ragga iyo dumarka alle xusa alle waxa uu diyaariyay dambi dhaaf iyo ajar weyn aayadahaasi iyo kuwa kaleba waxay tilmaamayaan sinaanta xagga ruuxda islaamka xuquuqda dhaqaale iyadoo haweenka waqtigaas xaaladda adduunka ka jireen aanu soo sheegnay marka uu islaamka yimaaday in gabadha la dilo iska daaye waxay xaq u leedahay gabadha ama xaaska in ay yeelato hanti u gaar ah halka dunida waliba reer galbeedka ay xaaska u ogolaadeen 1870 inay yeelato hanti u gaar ah bal qiyaas farqiga sidoo kale islaamka haweeneyda ma ahan inay shaqayso si ay u noolaato sida haweeneyda waajibaad loo saaray ayaa ninka waajib looga dhigay inuu siiyo xaaskiisa gabadhiisa walaashiisa hooyadiisa waxay u baahan yihiin sidaas oo ay tahay haweeneyda way shaqaysan kartaa iyadoo waajib looga dhigayn inay lacagtaas siiso ninkeeda aabaheed ama qof kale way siin kartaa wayna kaysan kartaa bulshadana waa loo baahan yahay haween ka haqabtira baahiyaha bulshada sida dhakhtarnimo iyo aqoonta kaleba marka laga reebo shaqooyinka aan haweeneyda ku habbooneyn sida modelska ama kuwa dharka xayisiiya qaybta dambe ee muuqaalkeena ayaanu ku sharixi doonaa xuquuqda bulsho marka laga hadlayo xuquuqda bulsho waxaynu ka eegaynaa xagga gabadha xagga xaaska iyo xagga hooyada marka hore xagga gabadha qofnaba looma ogola in gabadhiisa yar dilo ama uu murugoodo marka gabar loo dhalo intaas iska dhaafay nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi ninkii laba gabadh dhalay oo barbaariya waxna bara jannada ayuu geli xagga xaaska islaamka waxa uu siiyey xuquuqaad haweeneyda xaaska ah marka guurka loo yimaado gabadha laguma qasbi karo qof aysan ku qanacsanayn sidoo kale qalad fahanka dadka qaar ay dhahaan ragga ayaa dumarka laga sarreysiiyey iyagoo soo qaadanaya aayadda odhanaysa ragga waxay qawaamo u yihiin dumarka marka hore ereyga qawaama asalka carabiga u kacid taasoo ah waxa ninka loo diray hal mas-uuliyad ama hal adeeg oo dheeraad ah inuu xaaskiisa u qabto markuu islaamka xiriirka ama siday isku yihiin suuratul baqara aayadda 187 hu iyo dhar baad isku tihiin marka hore maxaa loo adeegsadaa dharka waxaa loo adeegsadaa sida isku qurxin asturid iyo dhaxanta inuu ka difaaco iyo waxyaabo kale sidaas buuna islaamka ku cabiray isku dhawaansho daraadeed
xagga hooyada marka laga hadlo qiimaha hooyada ee islaamka ma ahan mid la soo koobi karo, halka diimaha qaar ay aaminsan yihiin hooyanimada iyo uurka inay tahay naclad lagu ciqaabay Xaawo iyo haweenka adduunka oo dhan. haddaba islaamka muxuu ka yiri? suuratul Israa aayadda 23 iyo 24 alle waxa uu ku yiri rabbigiina waxa uu xukmiyay in isaga mooyee cid kale la caabudin, waalidkana loo ihsaan sameeyo. haddii labadaada waalid mid kamida uu agtaada ku weynaado, of ha ku oranin, hana guulguulin, waxaase ku tiraahdaa hadal wanaagsan, garab dabacsanna u muujiya. waxaadna tiraahdaan ilaahayo u naxariiso, waxaadna ugu naxariisataa sida anigoo yar ii soo koriyeen. hooyada 3 jeer bay ka xaq badan tahay aabbaha xuquuqda waxbarasho. marka hore diinteena ahmiyadda waxbarasho meel sare bay ka joogtaa. nabigana naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yiri qof kasta oo muslim ah waxaa waajib ku ah inuu cilmi barto. gabadhana dadkaas bay ka mid tahay. aabbaha waxaa waajib ku ah inuu gabadhiisa waxbaro, sidoo kale ninka waxaa waajib ku ah inuu xaaskiisa waxbaro, weliba aas-aaska diinta ama uu u diro meelaha cilmiga lagu barto. caalimta haweenka waxaa ka mid ah Caaisha, allaha ka raali noqdee, sida uu yiri Qurwa oo ahaa ardaydii Caaisha, maan arag caalim ka weyn Caaisha, kana garan og quraanka, waajibaadka, xalaasha iyo xaaraanta, wax qorista, gabayga iyo luqadda carabiga. Caaishana waxay ahayd haweeney xifdin badan, saxaabadana waxay u imaan jireen si ay ugu kala saarto mas'alooyinka dhaxalka. سائد نفيسة waxay kamid ahayd haweenka caalimiinta ee islaamka, waxayna soo saartay arday badan. ardaydan waxaa kamid ahaa Imaamu Shaafici. Caaisha bintu Sacad iyana waxay kamid ahayd haweenka aqoonyahanada ee islaamka, in badan oo caalimiin ah bay soo saartay oo uu kamid yahay Imaamu Maalik. xuquuqda sharciyeed marka xukunka ama uu qof dambi galo, waxa uu raba ha ahaado ragga ama dumar, si isku mid ah baa loo xukumaa. hadduu dil geysto ama ay geysato waa la dilaa. islaamkana waxa uu dhowray in sharafka haweeneyda lagu xadgudbo, oo alle waxa uu quraanka ku yiri haddii qof gabar wanaagsan xumaan ku sheego uu 4 marqaati keeni waayo, waxa uu leeyahay 80 jeedal. sidoo kale marka reerka wax laga dilay ay cafinayaan qofka dilka geystay, looma fiirinayo rag iyo dumar. xuquuqda siyaasadeed islaamka waxaad ku arkaysaa in haweenka ay nabiga bayco la geli jireen, taasoo ka horeysa codaynta maanta. sidoo kale xashashada bulshada ama sharciyada bulshooyinka way ka qayb qaadan karaan iyagoo dhowrsoon, oo waqtigii Cumar baa waxa uu damcay inuu sameeyo sharci xadidaya meherka oo qaali ahaa, balse mid kamid ah haweenka muslimka ayaa tiri Cumarow, rabiba ma xadidin meherka, ma adiga xadidaya. sharcigeena halkaas baa lagu joojiyay. waxaas oo xuquuq ah uu islaamka haweeneyda siiyay, miyuu cabriye islaamka haweeneyda? adiga oo daawanaya muuqaalkan ayaa ka jawaabi kara una codayn kara. haddaynu u nimaadno su'aalaha been abuuraadka ah ee faafay oo ay ka mid yihiin xijaabka haweenka islaamka waa lagu caburinayaa. marka hore islaamka waxa uu ilaaliyaa shakhsiyadda qofka iyo qiimaheeda. waxaynu ognahay in dareenka soo jiidashada ay haweeneyda ka sareyso marka loo eego soo jiidashada ragga. bal haddii la dhaho haweeneyda xijaabka iska tuurto ama wuu caburinayaa, oo markasta uu ragga arko haweeney qaawan oo uu kaga fikiro galmo, maxaa ku dhacaya qiimaha haweenka? xaqiiq waxa uu ku noqonayaa sidii islaamka ka hor oo haweenka kaliya loo arko meel raaxo. islaamka rag iyo dumarba waxa uu furay in ay is asturaan, marna ma ahan in gabadha qiimaha nafteeda oo dhan uu u noqdo jirkeeda, sida ay hadda ku sugan yihiin bulshooyinka noo sheega xuquuqda haweenka. si qiimaha haweeneyda u dhowro sanado, ma ahan in ay ka shaqeyso meelaha bodhaliska, waayo reer galbeedka markii ay dhaheen qof kasta waxa uu rabo ayuu xiran karaa, qof kasta waxa uu isku dayay inuu quruxdiisa soo muujiyo, kadibna uu jirka noqday waxa qofka lagu qiimeeyo. intaas waxaa kasii daran in haweenka qaar wax fiican looga dhigay modeliska, taasoo ah in haweeneyda loo isticmaalo boor wax lagu xayeysiiyo, taasoo keentay in gabdhaha qaar si ay u noqdaan model soo jiidasho leh ay nafahooda qalin halis ah ku sameeyaan. sidoo kale beenaha faafay waxaa kamid ah islaamka waxa uu ninka ku waajibiyay inuu 4 xaas guursado. marka hore diinta islaamka waa diinta kaliya oo shuruudo ku xiraysa ama dhahaysa guurso hal xaas. xaasaska badan waxaa loo ogol yahay ragga qaar oo kaliya oo darajada cadaalad samaynta iyo xuquuqaadka kalaba awooda, balse diimaha kale marna kitaabkooda kuma sheegayaan inta uu ninka guursan karo. kuwa qaar waxay guursadaan haween aan xad lahayn. sidoo kale daraasaad ay Yurub samaysay baa waxay ku sheegayaan in ninka celcelis ahaan inta uusan guursanin uu la seexdo 8 haween ah. bal maxaan dhahnaa? ugu dambeyn, haweeneyda muslimka ah iyadoo asturan horumar way samayn kartaa, waxna way baran kartaa. waxaa qortay Kawsar Cabdillaahi Axmed Dimbil, anaguna waanu idiin soo gudbinay, idinkuna la wadaaga saaxiibada kale. mahadsanidin.